Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. Facebook ayaa soo bandhigtay shuruuc cusub oo qusaysa xaysiimaha siyaasadeed. Arrintan ayaa timid ka hor doorashadii madaxweynenimada Mareykanka, iyadoo laga cabsi qabo in shirkadda loo adeegsado si aan habboonayn. Dadka raba inay xaysiimo u sameeyaan siyaasadda ayaa hadda kadib laga dalban doonaa in ay aqoonsigooda soo gudbiyaan ka hor inta aan la siinin calaamad xaqiijinaysa in ururkaasi uu yahay mid sax ah. Shuruucdan ayaa qaban doonta Instagram oo ay leedahay shirkadda Facebook. Xaysiimaha lacagta lagu siiyo Facebook ayaa caan ka dhex noqon doonta ololayaasha siyaasadda iyo ururada kale si loo bartilmaameedsado codbixiyayaasha. Shirkadda Facebook ayaa sheegtay in ololihii Trump ee 2016 xaysiimihii lagu bixiyay $70 milyan. Facebook ayaa dhaqan gelinaya hanaan daahfuran oo daldal ah. Arrintaas oo bilaabatay tan iyo markii ay soo baxeen warar sheegaya in qolyo uu fadhigoodu yahay Ruushka ay Facebook soo geliyeen macluumaad ay ugu talagaleen in ay ku sameeyaan codeynta doorashada madaxtinimada ee Mareykanka ee 2016. Facebook ayaa tan iyo sanadkii 2018 xaysiimaha siyaasadda Mareykanka ku laaray. Shirkadda ayaa dhawaan sheegtay in ay mamnuucday Falun Gong oo lala xiriirinayo Epoch News kadib markii warbixin ka soo baxday NBC lagu sheegay in si been ah astoontooda looga adeegsaday si dad badan loo gaarsiiyo xaysiimaha Trump. Mar horena saxaafi ka tirsan Fox News ayaa u suuragashay inuu xaysiimo geliyo asagoo sheeganaya inuu ka socdo madaxweyne ku-xigeenkii Mareykanka ee Mike Pence. Sarah Schiff ayaa arrimaha u qaabilsan Facebook ayaa sheegtay in shuruucda cusub ay si dadban uga jawaabayso. Sanadkii 2018 waxaan aragnay caddeymo muujinaya in si xun loo adeegsaday qirashada, sidaas darteed tan waa dadaal aan ku doonayno inaan ku xoojino nidaamka, ayay tiri iyadoo la hadlaysa Newcastle Herald. Aaron Reid oo madax ka ah ururka Upturn ee ka shaqeeya cadaaladda dhijitaalka ayaa sheegay inuu la yaabay inay shirkadda ku qaadatay waqti intaas la eg hirgelinta xeerarkan. Alex Stamos oo horey madax ugu soo noqday qaybta ammaanka ee Facebook ayaa tilmaamay in shirkadda ku adkaan doonto inay aaladaheeda oo dhan ka dhaqan geliso shuruucdeeda.